سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن وناكسن داوضي المر والبعد جوكتان به qodobada aad wararkeena ku maqli doontaan waxa kamida qayladanta dalka Itoobiya oo wacashada xooga ku dagaalamaya dalka Itoobiya ayaa cirkaas ku sii shareeraysa ayadoo afayeenka TPLF uu sheegay qoomiyadda Tigreega meel kasta ay joogaanba inay ku soo guriyaan noqdaan gobolkooda dagaalkana ay ka qayb qaataan sidoo kale madaxa TPLF Gabrasiyon Gebramakaayil ayaa waxa uu sheegay dhalinyarada Tigreega inay dhigooda u huraan si ay u difaaci lahaayeen shacabkooda asagoo ugu baaqay dhalinyarada Tigreega meel kasta ay joogaan ba inay iska soo diiwaangeliyaan xiriyaha ciidamada lagu tababarayo ee laga hortagaya waa sida uu sheegay cadawga duulaanka ku ah qoomiyadda Tigreega sidoo kale dagaal qaran ayaa mar kale dib uga qarxay xadka u dhaxeeya Suudaan iyo Itoobiya iyadoo halkaas isku farasaareen sida la soo sheegayo labada ciidan ee labada dal waa Itoobiya Suudaan xogaga ayaa la sheegay inay madaafiic adeegsadeen halkaas la isku garaacay iyadoo magaalada Humayra uu dagaal u dhaxeeya xogaga TPLF Eritrea iyo ciidanka federaalka Itoobiya uu halkaas ka socdo sidoo kale Colonel Abiy ayaa kolba jid hor leh dagaalka ka hadaya sida ay sheegayso warbaahinta madaxa banaan ayadoo toddobajaha xooga TPLF laga weeraray hase yeeshee xooga TPLF ayaa isku sii balaanaya deegaano badan oo ka tirsan waqooyiga dalka Itoobiya sida gobolka Woldia xooga TPLF ayaa sheegaya inay magaalooyin cusub qabsadeen ayagoo sheegay ciidankii halka joogay inay waxay qabteen iyo wax ay dileen ay ka dhigeen qodobadaas iyo qodobo kaloo faahfaahsan ayaa warkeena ku maqli doonta haddayna u gudagalo wararkani oo faahfaahsan xooga TPLF ayaa qayladhaan diray sidii dowladda federaalka ay u sheegaysay ama ay u diraysay qayladhaan ay u diraysay dalka sidii ay qayladhaanta u diraysay dowladda federaalka ugu raadinaysa qurba joogta Itoobiya ku nool qaaradaha kala duwan ee caalamka ayna ugu baaqaysay inay dalka ku soo guriyaan noqdaan si ay uga qayb qaataan dagaalka lagula jiro xoogan isbahaysa ee mucaaradka sidoo kale xooga TPLF ayaa waxay ku baaqeen qoomiyadda Tigreega dhalinyarada Tigreega ee ku kala nool qaaradaha intooda kale ama kuwa dalka gudihiisa ku nool in ay si mutadawacnimo ugu istaagaan difaaca dalkooda iyo dadkooda rayidka taliyaha guud ee ciidanka Tigreega ayaa waxa uu sheegay inay tababar ciidan furayaan xiriyo waaweyn oo lagu xareynayo dhalinyarada kala duwan ee qoomiyadda Tigreega ama dadka ku nool deegaanka Tigreega si ay iskaga difaacaan cadawga soo duulay waa sidoo sheegay sidoo kale madaxweynaha Tigreega ama waqooyiga dalka Itoobiya Gabrasiyon Gebramakaayil ayaa waxa uu sheegay inay dhalinyarada Tigreega ku soo guriyaan noqdaan gobolkooda si ay uga qayb qaataan dagaalka lagula jiro waxa ugu yeeray cadawga qoomiyadda Tigreega dalka Itoobiya qayladhaan ayaa labada xoog ee ku dagaalamaya dirayaan ayoo qolo walba ay dadkeeda iyo shacabkeeda iyo taageerayaasheeda ay u wacanayso si ay dagaalka uga qayb qaataan qoomiyadda xamarada ayaa banaanbaxyo waaweyn dhigaysa uguna baaqaysa dowladda federaalka Itoobiya qurba joogta ku soo guriyo noqonaysa dalka Itoobiya ee lagu sheegay 1 milyan ee xogayaha arrimaha dibadda uu sheegay inay guddi isku dhaf ah oo soo dhaweynta qurba joogta 1 milyan ku soo guriyo noqonaysa dalka Itoobiya kana qayb qaadanaysa dagaalka lagula jiro xooga TPLF in lagu daro madaxweynihii hore Colonel Mengiste Haile Mariam in lagu daro si uu uga qayb qaato dagaalka lagula jiro xooga TPLF hadduu Mengiste Haile Mariam dalka Itoobiya dib ugu soo laabto waxay cadeynaysaa inay qoomiyadaha kale Itoobiya ay ayaguna halkaas raayigooda ka dhiban doonaan oo dagaalka Itoobiya si cuslaan doono dadka qoomiyadaha Itoobiya xamarada markii laga reebo ayaa waxay tabanayaan inuu Mengiste Haile Mariam waqtigii dalka ka talin jiray inuu xasuuq baan geystay ilaa waqtigan cid ka cafisay ama meel uu raali gelin ku bixiyay ayna jirin
hadduu Mengiste Haile Mariam dalka Itoobiya dib ugu soo laabto waxaa dhici karta inay ururada mucaaradka ama ururo badan oo kale inay soo baxaan dalka Itoobiyana dagaalka ka socda xal loo waayo. qodobada kale wararkeena ku maqli doontaan waxaa kamid ah dagaal qarar ayaa laga soo sheegay xadka u dhaxeeya dalalka Suudaan, Itoobiya, Eritrea ayadoo halkaasi dagaalada noocyo kala duwan ay ka socdaan. dowladda Suudaan ayaa saaka ciidamadii ugu badan waxay soo dhaftay xadka ayadoo sheegtay dhulka ay Itoobiya ka haysato inay ciidankaasi xoreyn doonaan. hase ciidanka federaalka Itoobiya ayaa xadka halkaasi difaaciyo weyn kaga jira ayadoo la sheegay xooggu inay halkaasi hawada soo mariyeen madaafiic aad u culus oo la sheegay inay ciidamada Suudaan ku garaaceen ciidanka Itoobiya xadka ku sugan Itoobiyana ay halkaasi ugu jawaabtay. sidoo kale dagaal qaraar oo u dhaxeeya xoogga TPLF ciidanka Eritrea iyo Itoobiya isku dhana ayaa wali magaalada Humeira ka socda. magaalada Humeira ayaa waxay tahay xad kala badha dalalka Suudaan, Itoobiya iyo Eritrea. xoogga Tigreega ayaa wali loo gelinayaa Humeira ayagoo halkaasi dagaal xoogan ka wada ciidamada labada dhinacna halkaasi ay dagaal xoogan ku hayaan. dagaalka qaraar ee dalka Itoobiya ka socda waxaad moodaa in loo kala hayado madaxda dalka Itoobiya ugu sareysa Cornel Abina ugu horeeya ayaa dalka jiidaha hore ku jira asagoo la sheegay Cornelku inuu dul meerayo dagaalada qaabka ay u socdaan asagoo kolba goob hor leh booqanaya. hase ciidanka federaalka ayaa moodaa inayna wali xoogga TPLF dhulka xoreyn ama dhul ayna ka saarin ilaa labashadii dambe ee ra'iisul wasaaraha dalka Dr. Abiy Ahmed. dagaalka ayaa cirkaas ku sii shareeray iyadoo guula hordhac ay sheeganayaan xoogga TPLF ayaa waxay sheegeen hayka inay qarka u saarayeen inay gacanta ku dhigaan iyo wadada 724 magaalooyinka waaweyn Dessi iyo Kombolja. dagaalka ayaa cirkaas ku sii shareeray waxaa lahana saacadan looma helin xoogga TPLFna haddaba abaabulkii ugu dambeeyay ku jiraan. sidoo kale qoomiyadda Axmaarada ayaa waxay ku mudaharaadaysaa meel kastana ay ku qoraysaa dowladda federaalka baaqay u jeedinayso. xoogaga Axmaarada ama qaybta xaq jirka ayaa waxay ku hadaaqayaan ama ay ku dhawaaqeen baaqay dirayaan dowladda federaalka Itoobiya ayagoo sheegay qurba joogta loogu baaqay inay dalka Itoobiya ku soo laabtaan in lagu soo daro madaxweynihii hore Mengiste Haile Mariam asagoo ugu baaqay inuu ka qayb qaadan doono dagaalka lagula jiro xoogga TPLF. hase qoomiyadaha kale dalka Itoobiya ayaan marna ogolaanayn inuu Mengiste Haile Mariam cag soo dhigay dalka Itoobiya ayadoo waqtigii Mengiste Haile Mariam ka talin jiray dalka Itoobiya la sheegay inuu xasuuqi ugu badan geystay. qoomiyadaha Itoobiya ayaan marna aqbalin meel uu Mengiste raali gelin ku bixiyana aan wali lahaynin. hadduu Mengiste Haile Mariam dalka Itoobiya ku soo laabto waxay caddayn u tahay inay qoomiyadda Axmaaradu jibi ahaanba dalka Itoobiya la wareegtay iyadoo Dr. Abiy Ahmed oo in badan ay ka qeyreen qoomiyadda Oromada la sheegay inuu ka soo jeedo in badan ku xamalayeen inuu ka soo jeedo qoomiyadda Axmaarada. hase hadduu Mengiste Haile Mariam mar kale yimaado ayaa dagaalka Itoobiya meesha ugu jahaysan doona la garan doonin. sidoo kale xoogga Oromada ayaa isku sii ballaaranaya dhul badan oo gobolka Walayta ka tirsan ayagoo sheegay inay halkaasi ku xasuuqeen ciidamo badan oo ka tirsan militariga dalka Itoobiya. tan iyo kulanti dambe wacan salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.